السلام عليكم. كن هبين يا هبين 1001 أما بعربيان 90 ألف الليل والليلة. Kusoo dhawaada fiidiyoowgeenna maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa buugga kun habeen iyo habeen iyo qoraagiisa oo aan xog sugan laga hayn. Buuggan oo ah buug ay wada sheekooyin iyo qisooyinba ku qoran yihiin kuwaas oo ay tiradoodu gaadhayso in ku dhow 200 oo sheeko amaba qiso. Buuggan oo ah buug ka mid ah buugta ugu fiican ee lagu qoray luqadda Carabiga, mana jirto luqad caalami ah oo aysan ku turjumayn, waana sheekada loogu akhriska badan yahay adduunka. Waxa ayna ku turjuman tahay luqadaha sida Carabi, English, Talyaani, Faransiis, Greek, Isbaanishka, Boortaqiiska, Jarmalka, Swedishka, Daanishka, Ruushka, Scotland, Poland iyo Hungary. Xitaa Soomaali ayay ku qoran tahay, waxaana 1706 loo turjumay luqad. Yaa qoray haddaba sheekada oo ah halka aynu uga socono fiidiyoowgeenna maanta. Ilaa hadda lama garanayo cidda qortay buuggan ama farta laguma fiiqi karo, waana cid aan la garanayn. Se waxaa jira laba ra'yi ama laba aragti oo ku saabsan qoraaga buuggan. Ka koowaad oo ay yidhaahdeen qayb ka mid ah baadhayaashu waxa uu leeyahay in buuggan bilowgiisa hore uu noqonayo qof kaliya. Ra'yigan labaad ama aragtidan labaad oo ay qabaan badiba aqoonyahanka iyo baadhayaashu waxa ay sheegaysaa in qoraaga buugga kun habeen iyo habeen aanu qorin qof kaliya ah, ayna ka qayb qaateen dhowr qoraayo oo kala duwan soona maray xilliyo kala duwan. Sidaasna waxa uu ku noqday koobsashada uu koobsaday dhowr juqraafiyad oo kala duwan, sida inuu soo wariyay sheekooyin ku saabsan Turkiga, Giriigga, Masar, Ciraaq, boqortooyadii Saasaan iyo inuu khalado ka galay luqadda Carabiga. Taasina ay muujinayso in aanu qorin qof Carab ah amaba Carabiga yaqaan oo kaliya, ee uu qoray qaybo ka mid ah qof Carabiga barbarad ku ah.